gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ka furay tababar ku saabsan samaynta heer tayada dalagyada beeraha waxaana tababarkani ka qayb galiyay xubno ka socday hay'adda dhowrista tayada iyo wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland waxaana tababarkan maalgelisay hay'adda Jarmalka lagu magacaabo GIZ iyadoo tababarkan u qaabilsanaa xarunta tababarada ee magaceeda loo yaqaano Smart Vision intii kulankani socdayna halkaasi waxa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horreyn halkaasi waxa ka hadlay Cabdicasiis oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda dhowrista tayada iyo Ismaaciil Haybe oo ka socday xarunta tababarada ee Smart Vision keenan wuxuu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa adeega agriculture-ka ama midhaha ka soo go'a beeraha inagoo tayadooda kor u qaadayna si aad ogtiin waa laf dhabarta dhaqaalaha adduunka iyo mustaqbalka xaq u socdaba waa in beeraha la xoojiyo beeraha si loo xoojiyo waa in standard fiican la helo oo quality-goodana inoo ashuur gareynaya inaga caafimaadkeedana damaanad qaadaya si hadhow mustaqbalkana ay viable business option inoogu noqoto maybe export ay u geli karto mustaqbalka marka programkeenu waxa weyn sidii aynu standard ugu sameyn lahayn horticulture-ka targetkeenu waa kaas runtii tayadu waxaan in badan ku soo jiray oo tababarana ku soo qaatay xagga quality assurance-ka kalluunka marka waan dareemayaa quality control commission-ku kaalinta muhiimka ay qaranka ugu jiraan saas awgeed aad uga faa'iideysta waayo qofka xarafka bara wuxuu yiri Imaam Shaafici muuha qofkii xarafi bara waxaan ku sigtay inaan adoon noqdo runtii nin aad u khabiira tababarka bixinaya oo tartan adag soo galay oo soo dabaashay marka inay ka faa'iideystaan ayaa muhiima runtiina waxa aad cunayso waa ubadkaagi waa qarankaagi waa dadkaagi waa cunaya marka waxa in la hubiyo tayadiisa oo in loo wada guntado aad iyo aad baa mahadsantiin aniga ku hadlaya runtii GIZ baa project bixisay way ku mahadsan yihiin hawlo badan oo wadanka ka wadaan Smart Vision xagga technical-ka ay ka saacidaa waxyaabaha technical ku saabsan dhankiisa isagoo halkaas waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda dhowrista tayada Somaliland Xamse Cabdi Ibrahim waxaan halkan u joognaa in aynu furno tababar ku saabsan samaynta heer tayeedka dalagga beeraha ama midhaha beeraha ka soo go'a mashruucaas waxay naga caawinaya ama ina taageeraya hay'adda Jarmalka ee magaceeda GIZ marka la soo gaabiyo mashruucan magaciisa waxa la yiraahdaa SPQA marka runtii ila furkiisii wanaga maraaxil kala duwan buu soo maray oo intaaba guddi farsamo oo ka socda xafiiska hay'adda dhowrista tayada iyo hay'adda GIZ ayaa runtii in fara badan ka soo shaqeynayay markii ugu dambeysana waxaanu soo afgaranay inaynu wada shaqeyn yeelano hadii Ilaahay ka dhigo marka horta marka koowaad waxaan uga mahadnaqayaa hay'adda GIZ in ay hawsha weyn ee qiimaha faraha badan markii hore nagu kici jirtay marka aynu sameeyno heertayada hawsha faraha badan ay naga gali jirtay inaynu maalinkan maanta ka wada shaqeynayno waan uga mahadnaqaynaa marka koowaad iyo mar labaadba waxaan rajaynayaa tababarkan inuu wax weyn ka tari doono wax weyn ka bedeli doono wax soo saarka beeraheena iyo waxa aynu cunayno laftiga labadaba saadaradeed xubnaha maanta nasiibka oo halan tababar ka faa'iideystaan wuxuu socon doonaa muddo 3 casho shaqo weeye marka trainerka facilitatorka xaggan jooga casharada oo halkan ka bixin doono waxaan ku talin lahaa inaan la dhayalsan ee cashar loo qaato wax nolosheena khuseeya shaqadiina khuseeya dasiyaalo fara badan inoogu soo noqonaya marka hawshana imika ugu yaraan 5 bilood ama 6 bilood ugu dambeysay marba shirar maxaan ku dhahday arrimahan laga hadlayo ayaa runtii qabsoomayay marka hawshaas miisaanka inta leeg bay leedahay waxaan doonaynaa hadii Ilaahay ka dhigo inaynu shaqadeena ku practice kareyno hadii Ilaahay ka dhigo waxaan markale idinku magaranaysaa adkeenayaa inaynu tababarka hadii Ilaahay ka dhigo suu yahay aynu uga faa'iideysano hay'adda GIZ oo runtii mashaariic fara badan gacanta ku haysa waxaan rajaynayaa inaan mashruucan noqon kii koowaad aynu ka wada shaqeyno hadii Ilaahay ka dhigo ay mashaariicda kale ee hay'addu hayso
in maxaan ku dhahday aanu ka qayb gallo si maxaan adeegyada kala duwan ee aan bulshada u hayno aan ugu helo maxaan ku dhahday aan u haleelo haddii ilaahay ka dhigo. Ismaan Axmed Ismaan Saab TV Hargeysa. abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka moobilo iyo lacag kaash ah si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga dahab. شركة إسكارسين تعسر جاه سونتل